oo rekordka ugu jirta dhakhtarkooda waa inay si gooni ula kaashadaan GP-gooda si loo xaqiijiyo inay qaadan karaan tallaalkan iyo in kale. xalaal ma yihiin tallaaladu? tallaaladani kuma jiraan wax laga sameeyey xayawaan ama khansiir, kumana jiraan wax khamri laga sameeyey, weliba khaasahan tallaalka Pfizer-BioNTech iyo tallaalka Moderna. inta yar oo khamriga oo weliba khaasahan ethanol la yiraahdo oo ku jirta Oxford AstraZeneca waa in aad u yar oo ka yar inta laga heli karo khamiirka roodhida markuu samaysmo iyo muusku markuu bislaado. wadaadada oo dhan way isku raacsan yihiin inay saddexdu tallaalaba wada xalaal yihiin. DNA-gayga ama hiddasidahayga ma bedeli karaa? waa su-aalay dad badan ay ka baqsan yihiin oo aada uga warwarsan yihiin runtii. laakiinse tallaaladan waxaa ku jira wax la yiraahdo mRNA oo ah wax u eg qayb yaroo ka mid ah hiddasidaha samaysa ama DNA-ga samaysa spike proteinka. DNA-da laftigeed kuma jirto. midda labaad, DNA iyo mRNA waa kala duwan yihiin. marka sida daraaddeed mRNA-ga oo ah copy ma bedeli karo hiddasidahaaga ama DNA-gaaga. mRNA-ga markii lagugu duro kadib muddo yar kadib wuu burburaa oo dhiigga wuu ka baxaa marka uu difaacaaga kiciyo. wax jidhkaaga ku hadhayaba ma aha. kuwaas waa siday u shaqeeyaan tallaalada Pfizer-BioNTech iyo tallaalka Moderna. Oxford AstraZeneca wax yarun buu ku kala duwan yahay. tallaalkaas waxaa ku jira virus la dilay oo aan tarmi karin, waa virus kale aan ahayn coronavirus oo la dilay oo aan tarmi karin oo la xambaarshay hiddasidaha samaysa spike proteinka. dhasha wax ma yeelaa? ma jiraan wax caddaynaya inuu wax yeeli karo dhasha ragga ama dumarkaba. midda labaad, maadooyinka ku jira tallaalada mRNA-ga mooyaane wax cusub maaha, waxaana ku jiraan daawooyinkii ama tallaaladii horuu jirayba. dumarka uurka leh wax ma yeelaa? dumarka uurka leh laguma tijaabin tallaalkan markii la baadhayay. sidoodaba dumarka uurka leh iyo carruurta yaryar lagama qaybgeliyo cilmi baarista, weliba qaybta hore, waana xeer ay leeyihiin. sida daraaddeed dumarka uurka leh lama wada siinayo tallaalkan COVID-19 taxadir ahaan. laakiinse dumarka qaarkood markooday horey khatar u leeyihiin inay COVID-19 usii xanuunsadaan, weliba khaasahan dumarka xaaladaha caafimaadka horu qabay sida sonkorta ama keliya xanuun ama wadna xanuun ama dhiigkarka, iyo dumarka ka shaqeeya safka hore shaqaalayaasha NHS-ta. dumarkaas dhakhtarkooda si gooni ula hadlaya ula kaashanaya si uu u xaqiijiyo inay halis dheeraada ku jiraan in kale ayna u baahan yihiin tallaalkan. waayo COVID-19 markuu ku dhaco qof uur leh ay aada ugu sii xanuunsato waxay waxyeeli kartaa nafteeda iyo ilmaheedaba. ma kaa celin karaa tallaalku noocyada cusub ee coronaviruska dhowaan soo baxay? saddexda tallaal oo UK laga ansixiyey waxay kaa celinayaan noocyada ugu badan oo coronavirus ee laga helo waddanka UK. waa yar yihiin tiradooda inta laga helay noocyada ka dilaacay South Africa iyo Brazil. midda labaad, noocyada cusub ee coronavirus ee ka dilaacay UK, South Africa iyo Brazil wax yar unbay ku kala duwan yihiin. waxay ku kala duwan yihiin qayb yaroo ka mid a spike proteinkaas oo bedelmay markuu fayrasku xoog u tarmo. marka saynis yahanadu waxayna leeyihiin tallaalku wuu kaa celin karaa noocyada cusub ee coronaviruska, waayo wuxuu kiciyaa difaaca jidhka oo la dagaalamaya spike proteinkii oo dhammaa maaha qaybtii yarayd oo bedelantay keliya. laakiinse isbedelaada ku dhacay spike proteinkaas waxay keentay inuu virusku xoog u faafi karo, heer ay 70% ka badan tahay coronavirusyadii hore aan ku ogeyn Ingiriiska. maadaama ay fayrasyadu isbedelaan, waxaa weli socotaa cilmi baaristii lagu kobcin lahaa tallaalada aan hadda haysano si ay uga hortagaan noocyada cusub markay tarmaan oo soo baxaan mustaqbalka. waxaa dhici karta inaynu gaadhno heer la leeyahay sanad walba coronavirus tallaal baa loo baahan yahay, sida tallaalka fluga aan sanad walba u qaadano oo loo bedelo noocyada cusub oo fluga soo baxa. ma diidi kartaa tallaalkan? mar walba waa go-aankaaga inaad tallaalkan qaadatid iyo in kale, wax lagugu qasbi karo maaha. haddaan tallaalkan diido, ma jiraan waxaan iskaga difaaci karo COVID-19 ama difaacayga kicin kara aan iskaga celin kara coronavirus. mar walba iyo markii cudur kastaba laga hadlayo, waxaa muhiima inaynu jidhkeenna iyo caafimaadkeenna asaaska ka dhisno. waa wax joogto ah oo loo baahan yahay. waxaa loo baahan yahay cunto nafaqo leh inaan mar walba ku dadaalo, inaan had iyo jeer jimicsigeenna badsanno,
iyo inaynu qaadano fitamiinada qaarkood waliba khaasahan vitamin D oo qayb weyn ka qaadata difaaca jirkaaga, inaynu hurdo fiican qaadano iyo inaynu warwarka iyo stresska fara badan aan iska yarayno, waayo difaaca jirkaagu dejiyaa markuu stresskaagu badan yahay ama hurdadaadu uu yar yahay. kuwaasi waa wax xeer joogto ah oo mar walba loo baahan yahay. laakiinse haddaynu runta isu sheegno, ma jirto wax kaa celin karta coronavirus, mana jirto wax daaweyn karta COVID-19. haddii uu COVID-19kii uu xumaa uu kugu dhaco, toonta, basasha, xabata soodaha, biyaha la badsanayo ama biyaha laisku uuminayo kaama daaweynayso COVID-19, waayo COVID-19 daawo ma leh. waxtarkoodu wuxuu ku kooban yahay daryeelka jirkaaga inta uu difaacaagu iska celinayo ama dilayo fayraska kan oo aad ka bogsanaysid insha allah. tallaalku COVID-19 ma ku siin karaa? saan hore idinku sheegay, tallaalkani kuma jiro coronaviruskii laftigiisa, marka COVID-19 marnaba kuma qaadsiin karaan tallaaladani. maxay tahay astaamaha la ysku arki karo marka aad tallaalka qaadatid? astaamaha aad dareemi kartid markaad tallaalka COVID-19 aad qaadatid waxaa ka mid a jir xanuun, madax xanuun, xumad yar iyo gacanta oo ku damqato ama culays aad dareentid. laakiinse astaamahaas ayaamo gudaheed ayuu dadka badankood ka baaba'aa. ma ku jiraan tallaaladan 5G microchips? runtii ma jiraan wax wararkan xaqiijin kara, wax caddayna ilaa la-aanka maanta lama arag, marka definitely wararka beenta ah ayay ka mid tahay. wararka la sudirayo aad bay u fara badan yihiin. fadlan iska ilaaliya waxyaabaha beenta layskaga gudbinayo social mediaha sida whatsappyada iyo facebookyada, badankood wax caddaynaya ma leh, marka fadlan iska ilaaliya waxa beenta ah intaydinaan su gudbin. fadlan cid waraysta oo waxaan ku takhasusay, khaasahan dhakhaatiirtiina ama qof waxaa wax ka yaqaan, waayo haddii lasu gudbiyo wararkan beenta ah, naftiina iyo cid kale aad wax yeeli kartaan, bulshadeenna ayaa khatar geli karta. marka fadlan iska hubiya intaydinaan gudbin, aynu isu gargaarno, aynu is ilaalino. soo koobid, coronavirus dawo ma leh. tallaaladani waa difaaca ugu weyn aynu maanta haysano in iskaga celin karno cudurkan halista ah ee COVID-19. waxyeelada tallaalkan mar walba way ka sahlan tahay astaamaha ama khatarta COVID-19. waa cudur dilaa ah, ha sahlanina coronavirus. haddaad warwar ama su-aalaba ka qabtaan tallaaladan ama si gaara uga warwarsan tahay xanuunkaad horu qabtay, fadlan GP-giina ama dhakhtarkiina la kaashada. inta ay xaaladuhu hagaagayaan, fadlan taxadir dheeraada qaata. sanka iyo afka daboosha, gacmihiina mar walba dhaqa, hala kala fogaado inta xayiraada laga baxayo. marka intaasaan kusoo gabagabeynaya wacyigelinta iyo warbixinta ku saabsan tallaalada COVID-19. waa warbixin guuda, ma aha talo khaasa oo qof loogu talagalay. waxaan rajaynayaa inay su-aalihiin intii badnayd aan idinka jawaabay. haddaad wax su-aalo kale aad leedihiin oo guud ahaan, fadlan commentska kusoo qora. fadlan like iyo subscribe ku taabta. wararka saxda ah way badan yihiin, waxaad mar walba xaq u leedihiin in su-aalihiina laydinka jawaabo. anna waxaa idinku boorigelinayaa inaad wararka saxda ah aad raadsataan oo dadka waxa wax ka yaqaan aad waraysataan. markii aad warka saxda ah aad heshaan oo su-aalihiina oo dhan laydinka jawaabo, waxaa markaa muhiima inaan rabbi tala saarano, waayo dhakhtar waaxida 100% wax kuu xaqiijin kara dunida maba jiraan. waxaa kani waa waxay saynis yahanadii iyo cilmi baaristii adduunka oo dhan isugu yimaadeen oo ay iska xaqiijiyeen waxtarkiisa iyo ammaankiisa. marka fadlan wararka saxda ah dabagala, su-aalihiina dhiibta oo dadka weydiiya, kadibna insha allah rabbi baan tala saaranaynaa oo aaminaynaa inuu ilaahay naga dulqaado xanuunka kani insha allah. waa inoo mar kale iyo kulanti dambe. wassalaamu calaykum waraxmatullahi